وبركاته. maalin waxaan oo wanaagsan dhammaantiin walba ku sugan tihiin. hadda maqalkii muuqaalkan aragtaan hadda waa kambaraalkan aad taabataan, share and like, subscribe to my YouTube channel Jubayra. aad baan idin salaamayaa meel walba joogtaan. I hope everyone doing well. alxamdulillah. waqtigu kala duwan, waayuu kala duwan. barnaamijka aan maanta aan ka hadlayo waxa waaye waa barnaamij yaroo aad u fiican oo aad ka heli doontaan insha allah. waxaan ka hadlayaa halkan waxaa yaala caag yaroo buluug ah oo la yidhaahdo waa collagen, fetal protein collagen peptide. okay, marka collagenku wuxuu leeyahay faa'iido aad u fara badan ayuu maaragtay jirkeena oo maaragtay bini'aadanka oo ugu fiican yahay. waxtar badan ayuu leeyahay oo faa'iido badan ayaa ka faa'iidi doontaan. halkan marka waxa ii yaala waa shaaha ii yaala. marka hore bal waxaan rabaa shaaha halkan iigu jira sonkor ma leh, caano ma laha. waxa waaye marka waxaan rabaa in aan maaragtay collagenkan aan ku shubo. waxaan rabaa waxyaalaha collagen qaabka iyo waxyaalaha badan loo isticmaalo. marka waxaan tusayaa caano boor camal weegaya. halkaas shaah ayaan ku darayaa hal qaado iyo bar. alaabtan lagama sheekeyn karo. alaabtan innaba caadi maaha. marka waxaan rabaa in aan sheekadii waan iin bilaabayaa. shaahina soo qaata, kursigana soo qaata, timirtina soo qaata. marka waxaan rabaa in aan barnaamijkana ila gashaan oo aad ila fiirisaan hadduu ilaahay hadduu yidhaahdo. marka waxaan leeyahay sorry, xaafadan joogaa. marka waa laga soo galay laakiin waa laga baxay. marka waa kana saasoo noqday. wax isbedel ma laha, innaba caadi maaha. okay, marka waxaan filayaa inaad kulligiin aad soo wada fadhiisateen say la tahayba shay la soo qaadateen. collagenka wuxuu u leeyahay sida hadda aan sheegay faa'iido aad u fara badan. collagenka horta muxuu yahay collagen? collagen haddii aan dhaqtar aniga ma ihi wax yar, laakiin caafimaadka waan yar babartaayo maaragtay heerkii loo baahnaa ma ka gaarin. dhinacna microphone baan ka wataa, dhinacna maaragtay marka waa isku dhex wadaa insha allah. marka collagenku waxa waaye haddii aan Soomaali ku sheego waa xabag bini'aadmiga ilaahay uumay. waxaa jirkooda ku jiro xabagta jirkaaga haddii uu ka dhammaado sidee baa lagu ogaadaa? marka xabagta jirka ma ka dhammaado iyo da'da ay ku timaado oo qofka bini'aadmiga uu ku gaaro xilliga xabagta jirkiisa ay ka yaraato ama ay ku jirto. horta ilaahay baa horta caafimaadka haya, ilaahay baana cimriga haya, ilaahay baa maaragtay wax walba isagaa qofur raxiima, isagaa maaragtay qof walba isagaa meel ba gaarsiinaya, cimrigiisa isagaa meel ugu talagalay. maalinta yoom aad dhalatay iyo yoomka aad dhimanaysid waxaa waaye allah yaclam. marka xabagta waxa ay ku bilaabata qofka marka uu yaryahay ilaa uu qofka marka uu soo gaaro 30 sano. 30 years qofka markuu gaaro ayaa mataqaanaa xabagta ama 34 ama 35 ama 36 uu qofku jiro ilaa 40 ilaa iyo 50 ilaa iyo 60 70 80 qof gaaraya. siiba bulshadeena Soomaaliyeed collagenka waa nagu yaryahay. waxyaala faytamiina ma qaadano,
waxyaalaha oo maaragtay dad waxaan iska nahay waddankeena burburay, dad waxaan iska nahay hadba qof meel ku laalman, adduunyadii maaragtay 20 sano 30 dambaan soo dhexgalnay. marka waddankeena waa waddan fiican, wax walba oo kheyraad baa yaalla oo maaragtay dabiiciya, inkastoona kheyraadka annaga aan nahay Soomaali aanan ka faa'iideysan badeena, dhulkeena, waxyaalaha aan inaba caadi ahayn. dee marka la iga sheekeeyo ama aan youtubada aan ka baarbaaro waxaan idhahdaa oh wow ya inaba caadi maaha, waxyaalahan qurbaha yaalla annagaaba ka fiicanba. marka collagenka qofka da'diisa marka ay tahay 33 ama 30 uu qofku uu gaaro ayaa qofku waxaa ku imanaya cillad fara badan. qofka markuu 40 xataa gaaro waxaa ku imanaya xabagtii waxaa ka yaraanaysa jirkiisa ku jirtay. marka sidee baan marka xabagtii jirkeena ku jirtay ka dhamaanaysay sidee baan aan ugu soo celinaa? okay, marka maxaa ka mid a markay xabagta kaa dhamaato 30 sano aad jirto? horta collagenku ma qaadan karaan qofkii markuu jiro 15 sano ilaa iyo 12 sano ma qaadan karo, because qofkaas jirkiisa waxaa ku jiro xabag oo xilligii loo baahnaa ayuu qofka joogaa. qofkii uur leh anu dhakhtar ma ihi, waxaa la xiriirtaa dhakhtarkaaga la xiriir, weydii ma qaadan karaa collagenka. waa very simple, waa wax oo iska caam ah waaye. collagen ma qaadan karaa? Soomaaliya waa laga helaa, muqdisho wuu yaallaa, anywhere Soomaaliya wuu yaallaa, oo meelaha wuxuu yaallaa oo lagu iibiyo cuntooyinka oo maaragtay oo dabiiciga sida borotiinada iyo waxyaalahaas lagu iibiyo, waa ka heli kartaan. okay, marka waxaan leeyahay dhakhtarkeena la xiriirto waaye. haddii aad jiran tahay oo sonkor iyo dhiig karaa qabto, dhakhtarkaaga la xiriir, saa kuu sheegaya. marka maxaa lagu dareemaa qofka markuu collagenku ka dhamaado? qofka markuu da'daas uu jiro 30 sano ka weyn yahay, timaha kaa daadanaya, kow, hurdada kugu yaraata, biyaha badan aa cabaysa oo kugu yaraada, maxaan ku yiraahdaa indhaha hoostooda maaragta oo ku barbarara, cidiyahaaga oo mataqaana si fiican u bixi waayo, markii meel jaranjaro aa korto oo kaleeto jaranjarada ay ku dhibto oo maaragtay wiish aa raacdo oo kaleeto, wiishkaa ka jecesha wiish adoo guri dabaq adoo degan ayaa waxaa raacaysaa wiishkii, marka waxaa lagu qaata jaranjarana korto, marka waa daaleysaa. marka qofka markaasaa loogu dareemaa collagenku markii jirkaaga aad ku soo celiso. marka waxaa jira kan waa lo waaye, marka asagoo waxaa jira oo fish ah oo malay laga sameeyey, kan waa ari, waa lo waaye. yes. marka waa arkayseen sida wuxuu u fiican yahay, halkaan ku qoran yahay wuxuu u fiican yahay skinka waa maqaarka waaye, maqaarka balaadmiga, maqaarkaaga. marka dumarka, ragga iyo dumarka horgabooba, saa aniga aan ku arkay buugaagtan ka akhriyay. marka dumarka iyo ragga, dumarka aad u degdega oo duqoobka keena. marka halkan ayay ka bilaabmaan, maxaa la dhahaa, duqoobgow wuu ka caawinayaa skinka, wrinkle-ka waxa oo dhaho duuduubka oo soo galo, maxaan ku dhahaa, wejiga. ragga xataa way leeyihiin laakiin dumarka ku badan. dumarka aad buu anfacayaa, haddaysan uur lahayn way isticmaali kartaa, da'deeda ay tahay 30 sano ka weyn tahay, 24 ilaa iyo above 40, you know. marka ragga dumar waa isticmaali karaan. haddii aad jiran tahay dhakhtarkaaga la xiriir oo waxaad tirahdaa aniga xanuunkaa tahay ma qaadan karaa, saa kuu sheegaa. marka inaway ka gudubno. marka collagenka waxaa loo isticmaali karaa 100 way. waxaa ku dari kartaa shaahada, waa kana shaahan ku darsanayo, waa flavor, yani wax uu leeyahay ma jiro. waa adoo caano boore ku shuba waa shaah laakiin wax isbedel ma laha. marka biyo waad soo qabsan kartaa, caag yaro kanoo kale waad soo qabsan kartaa, biyaa ku shubi kartaa, kabacdi laba furo waxaa ku shubi kartaa oo collagen waa luxe, waa cabaysaa, waa caadi. waa ku darsan kartaa smoothiga, waa ku dari kartaa
dadka gymka aado marka gymka ka yimaado kaleeto proteinka gymka oo aad qasanayso after workout ka qasanayso kaleeto 2 spoon laba qaado ku dar kartaa waa ku cabi kartaa maxaan ku rahaa boorashka oo kale sida loo yaqaano mashaarida loo yaqaano kale laba qaada ku daraysaa waad ku cunaysaa faa'iido innaba caadi markaa isticmaasho ilaa iyo bil adiga ayaa dareemaya 2 bilood aniga aad baan mataqaanaa aan uga helay aad buu maaragtay iyo anfacay waxaa fi wanaagsan qofka markii asaga mataqaana wuxuu asaga soo sameeyay oo taraagarayo inuu dadka u sheego aad bay wanaagsan tahay qofka jirkaaga wuxuu mataqaanaa collagenkan uu galayaa haddana waxaan isticmaalaya 2 month adiga 2 month 3 month jirka bini'aadanka isku mid maaha anigu dhakhtar ma ihin waxaa wanaagsan inaa maaragtay wax marka inta aadan meel la soo fariisan inaa adiga maaragtay tijaabo aad ku samaysaa jirkaaga oo aad fiirisaa qaabka uu kugu shaqeeyo marka alaabtan caadi maaha collagenka waa xabagta jirka ka dhamaata sidee baa xabagta marka jirka ay ka dhamaato sidee ugu soo celin karaa marka waxaa ku soo celin kartaa waa collagenkan marka waxaa ku dareemi kartaa saan sheegay jirka bini'aadanka isku mid maaha ilaa 3 bilood 4 bilood 5 bilood hurdo fiicanna waa helaysaa subax markaad soo kacdo kaleeto dad waxaa jiro maaragtay siiba dumarkan aad buu barakan ugu fiican yahay dumarka aad buu u anfacayaa maaragtay waxyaalo badan oo faa'iidooyin badan ay ka helayaan oo dumarka ay ka helayaan jirkooda mataqaana isku bedelayo tan kaleetana collagenkana aad wuxuu ugu fiican yahay adiga dhanba wuxuu kaa dhigayaa one color uu kaa dhigayaa mafahante marka wax oo chemical maaha waxa waaye waa wax dabiiciya xabagta jirka ka dhamaato waaye kusoo celi lafaha xanuunka muruqa xanuunka dhabar xanuunka daalka gabowga soo qofka soo degdegayo wejigiisa gabow soo galaayo oo gabow soo yani duqow soo galaayo waxaasoo dhan ay mataqaanaa ilaahay baa laakiin qofur raxiima isagaa maaragtay wax walba naga warhaya qofka waqtigu gabowgiisa kusoo dhaqsanayo laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi taxadar anigana waan kula jirayaa marka waxaan leeyahay alaabtan ila fiiriya insha allah marka marka waxaan oran lahaa bal markana cabayaa waxaan dareemaya male caadi biyo cabo cabay shaahay ku darsaday it's like oh my goodness yeah anyway marka waxaan leeyahay see you then the next video and subscribe to my YouTube channel and like and share inshallah see you the next video and I have like video badan hayaa oo maaragtay soo din doona inshallah waxyaalo oo ku jiraan maaragtay benefit leh so inshallah waxaan leeyahay subscribe and share to my YouTube channel inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bye